Magaca Aabaha Wiilkii Royal Barkeysan dhegeystayaal daawadayaal waa mar kale iyo Bataalka Barakeysan ee David Zabuur qeybta koowaad ayaan weli bartanka kaga jirnaa. Waxaan idiin soo diyaariyey chapterka 2 iyo 3. Haddaba aynu bilowno. Jewishka, Muslimiinta iyo Kiristaanka dhammaantood waxay isku raaci doonaan inay shaaciyaan Rabbiga Ilaaha weyn, waana la ammaani doonaa si weyn. Si kastaba ha ahaatee, Nebi David wuxuu Psalmka 2 ku bilaabay erayadan: Maxay qurumuhu aad u xanaaqsan yihiin ama u caraysan yihiin? Maxay waqtigooda ugu luminayaan qorshayaal aan rajo lahayn? Boqorrada dhulka waxay u diyaar garoobaan halgan iyo dagaal. Miyay boqorrada dhulka u diyaar garoobaan halgan iyo dagaal? Taliyeyaasha si wadajir ah shirqoolaan Rabbiga iyo kiisa uu subkaday ama doortay. Aynu jebino silsiladahooda. Way ooyaan iyo xoreeya nafsadeena addoonsi xagga Ilaah, laakiin kan samada ka taliya wuu qoslaa. Rabbiga wuuna ku jeesjeesaa ayaga. Rabbinimadkan weli waa la buuxin doonaa si dhammaystiran. Si kastaba ha ahaatee, waxaan aragnay qarnigii la soo dhaafay iyo kan hadda aan joogno dowlado shuuci ah oo kala duwan oo qabanqaabinaya oo kaxeynaya dadkooda si ay uga xoreeyaan dhammaan raadadka Ilaaha qaadirka iyo inay shaaciyaan bani'aadamnimo aan diin lahayn. Rabbiga shaaca ayuu ka qaadaa: Boqorkayga aan doortay waxaan fadhiisiiyey taajka Jerusalem ee buurtayda barakeysan. Boqorku wuxuu ku dhawaaqaa amarka Rabbiga. Rabbiga wuxuu igu yidhi, Adiga waxaad tahay wiilkayga, maanta waxaan noqday Aabbahaaga. Kaliya weydiiso qurumahana waxaan dhaxal ahaan idin siin doonaa dhulka oo dhan oo hanti ahaan idin ah. David wuxuu ka hadlayay Kiristiga naqayada xulka ah ee Ilaah, ahaana hadda noqonaya wiilka Ilaah. Ma ahan wiil dhiig ah, laakiin waa taliye, sharci sameeye, hogaamiye, nebi, rasuul gaar ah, ruuxaaniya Ilaahay doortay. Inkasta oo Jewishka, Muslimiinta iyo Kiristaanka ay aqbalaan fikraddan Masiixi gaarka ah, waa Kiristaanka iyo Muslimiinta kaliya kuwa qiraya in qofkani uusan ka duwanayn Jesuska Nazareth. Kiristaanka waxay la tahay in Jesus yahay erayga Ilaah oo noqday jir, kaa oo ku soo laaban doona ammaan. Si kastaba ha ahaatee, Islaamka ma aqbalo in Jesus yahay ama ahaa mid Ilaah ah, laakiin wuxuu dhigaa in uu la soo laaban doono ammaan isagoo Muslim ah. Sidaas oo kale, Kiristiga wuu imanayaa isagoo Juu ah, u noolaan doona ammaanta quman ee Ilaah, dambi la'aan sida nebi kale uusan u lahayn ama uusan weligiis noqon doonin. Kadibna uu ku soo laaban doono inuu ku fariisto gacanta Ilaah ee awoodda si uu u hirgeliyo ujeedada Ilaah ee badbaadada kuwa is dhiiba si run ah.
Saddexda diin waxay aaminsan yihiin in aadanuhu ay u egyihiin muuqaalka Ilaah, laakiin ay si xun u cilladaysan yihiin awood la'aantayada inaan u noolaano ammaanta Ilaah. Kiristaanka waxay aaminsan yihiin in ereyga Ilaah uu noqdo jir uu yahay habka Ilaah ee naga dhigaya dadka aan dhici karin inaan bilowno inaan noolaano si aan Ilaah u raali gareyno, iyo inaan taas muujino iyadoo la jecel yahay aadanaha oo dhan sida Jesus nafsadiisa noo tusay. Haddaba, boqorro si xigmad leh u dhaqma, digniin yeesha, taliyeyaasha dhulka u adeega Rabbiga, idinka oo ku madhan cabsi xushmad leh, farxa markay idin baabaxayso gariiraysaan. Psalm-ka barakeysan ee David. U hoggaansan wiilkaygow boqortooyada Ilaah, haddii kale wuu xanaaqi doonaa oo waad ku burburi doontaa hawlahaaga oo dhan, waayo xanaaqiisa si degdeg ah ayay u kacdaa. Haddii taliyeyaasha dhulkan lagula taliyo inay isku dhiibaan Kiristiga Ilaah, ma u malaynaysid miyaa in dadka dhulka lagula taliyay inay is dhiibaan kahor intay goori tahay? U hoggaansanaanta rabbinimada Kiristiga Ilaah waxaa lagu amray dhammaan kuwa maqla fariinta Psalm-ka ee David. Dhammaanteen waxaan u baahanahay inaan u hoggaansano Kiristiga Ilaah Jesus, waayo sida Kiristaanka aaminsan yihiin, Jesus waa habkii Ilaah u doortay inuu naga badbaadiyo musuqmaasuqa dabiiciga ah iyo inuu kuwa is dhiiba jannada keeno. Nashiido Psalm-ka dhiirrigelinaya. Rabbiyow Ilaahow, waxaad aasaastay badbaadada Kiristigaaga, wiilka curadka ah ee boqor David. Qurumuhu ha jilba joogsadaan. Rabbiyow Ilaahayna, sidaan shaacino jacaylka badbaadintaada ee qof walba. Ilaahayow, nabadaada dunidan ku soo celi. Amiin. Halkaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa maanta qaybta Psalm-ka. Fadlan rukunsada channelka idinkoo subscribe dhahaya, like-na saaraya. Intaynu mar kale hawada ku wada kulmayno, sidaas iyo nabadgelyo.